ay saamilayda siyaasadda ee dalka isugu yimaadaan shir wada tashi si looga heshiiyo qaabkii lagu geli lahaa doorashada 2021 waxaana shirweynuhu soo jeediyey in dowladda Puntland qaadato doorka qaran ee kaga aadan ayna fidiso gobol Soomaaliyeed oo loo dhanyahay arrimaha federaaleynta dood dheer ka bacdi shirku wuxuu walwal iyo walaac ka muujiyey in nidaamka federaalka ee saldhigga u ahaa axdi qarameedkii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu sii wiiqmayo dowladda federaalka ahina ay ka weerartay nidaamka federaaleynta dalka gaar ahaan wuxuu shirweynuhu walwal ka muujiyey faragelinta qaawan ee lagu hayo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo nidaamyadooda gudaha arrintaas oo ka soo horjeeda dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka faragelinta ciidamadeed ee keentay dhimashada dhaawaca iyo barakaca bulsho ee ka dhacday doorashadii koonfur galbeed ee Baydhabo doorashadii galmudug ee Dhuumareed iyo golaha gobolka Gedo ee hadda taagan ku-takrifanka awoodda dowladda sida caburinta xoogaga siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan xukuumadda cunaqabataynta socdaalka hawada iyo xayiraadda waxbarashada gobolka Soomaaliyeed ansixinta sharciyo aan ku dhisnayn wada tashi iyo wada shaqayn dastuuri ah sida sharciga batroolka midka doorashada sharciga hawada iyo sharciga isgaarsiinta arrimahan oo dhan waxa ay baalmarsan yihiin qodobada dastuuriga ah ee 53aad 54aad 120aad iyo 142aad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka 7 shirweynuhu markuu arkay in la baalmaray heshiiskii dhisidda siyaasadda amniga dalka ee tiraacayay tababarka qalabaynta iyo hoggaanka ciidanka ee la saxiixay ka hor shirkii London 2017 wuxuu shirweynuhu walaac ka muujiyey in ay dowladdu dhisayso ciidan dhinac u raran oo aan isu dheelitirnayn khatarna ku noqon kara amniga xasiloonida iyo wadashada dalka shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda Puntland inay xisaabtan dhaba kala gasho dowladda federaalka iyo dowladaha gacanta ku siiya dowladda federaalka ah dhisidda ciidanka qaranka Soomaaliyeed labada qodobka 8 shirweynuhu wuxuu walwal weyn ka muujiyey siyaasadaynta deeqaha ee dowladda federaalka ay ku hayso deeqaha caalamiga ah ee lagu talagalay arrimaha bini'aadanimada horumarka iyo adeega arrimaha bulshada arrintan oo keeni karta siijiitan colaadda iyo kala qaybsanaanta bulshada Soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu ku adkaynayaa dowladda Puntland inay dowladda federaalka iyo beesha caalamka kala xisaabtanto hubinta in deeqaha caalamiga ahi aysan dib u keenin xasiloonida iyo degganaanta dalka Soomaaliya qodobka 9 shirweynuhu wuxuu dood iyo falanqayn dheer ka sameeyey qaabka wada hadalka dowladda federaalka iyo Somaliland iyo saamaynta ay arrintaasi ku leedahay dowladda Puntland shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inaan cid kale go'aan ka gaari karin dad iyo dhow ka tirsan Puntland sida waafaqsan dastuurka ku-meelgaarka ah ee federaalka Soomaaliya waxaana shirweynuhu ku nuuxnuuxsaday in dalku leeyahay nidaam federaali ah oo ku salaysan dowlad goboleedyo xubin ka ah dowladda federaalka ah
wax kasta oo ka baxsan hanaankaas lagu heshiiyey wuxuu khilaafayaa dastuurka ku-meelgaarka ah ee Soomaaliya. dowladda Puntlandna waa inay ka yeelataa wadatashi kana qaadataa go'aanada ku habboon ee dastuurka Puntland uu oggol yahay. qodobka konaad, haddii ay dowladda federaalku sii wado hareermarista dastuurka dalka iyo burburinta hanaankii lagu heshiiyey ee federaaleynta dalka, shirweynaha wadatashiga Puntland wuxuu dowladda Puntland ugu baaqayaa in iyada oo wakiil ka ah shacabka Puntland ay qaadato go'aan walba oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka Puntland ee dastuurku uu oggol yahay. qodobka 11 ugu dambeyntii wuxuu shirweynuhu u mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland qabashada shirweynaha wadatashiga Puntland. wuxuu sidoo kale shirweynuhu u mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada jaamacadda DSU iyo Maxamuud Sheekh Xaamid oo odayga ah oo noo fududeeyey laamaha amniga iyo cid kasta oo kale oo arrintaa qayb ka geystay. waa mahadsantihiin dhammaan.